السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan aan joogno waa garoonkii Genio oo qof walba yaqaan. aniga waan kamid ahaa dadkii halkan u imaan jiray ciyaarta. maanta oo taariikhdu 14 June waxaan amray in lagu baneeyo garoonkan muddo 3 cisho gudahooda si garoonka ugu soo noqdo gacantii wasaaradda howlaha guud gaar ahaan kooxda Genio gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed halkan si ay u noqoto goob sporti oo ay dhalinyaradu uga faa'iideystaan. sidoo kale iyadana waxaan amarnay in dhammaan goobaha danta guud ee dawladda lagu baneeyo sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo dhawaan aan bilaabi doono olole ballaaran oo ku wajahan dhammaan goobahaas si caasimadda u noqoto caasimad sidii ahaan jirtay 80-maadkii oo bilicdii ay soo noqoto. sidoo kale dhammaan dhismayaasha laga dhisay jardiinooyinka sida Afisioni 4 jardiino isgoyska Boondheere iyo kuwa kaleba wayn iyagana degdeg lagu baneeyaa si loogu soo celiyo goobahaas oo dhan jardiinooyin shacabka ka faa'iideysto oo isticmaalka uu noqdo mid dan guud ah iyo bilicdii caasimadda oo ay ka qayb qaadato. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hore ayuu u amray in dhulka dawlad la bixin karin sidaas daraadeed annaga haddii aan nahay maamul gobolka Banaadir uma dul qaadan doono in shakhsiyaad dana gaara uga faa'iideystaan dhulalkii danta guud ee dawladda. waxaan u sheegaynaa shakhsiyaadkaas inay si sharaf leh ku soo celiyaan dhulalkaas si dan guud loogu adeego. ciddii awaamirtan ka hortimaadana waxa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. sidoo kale waxaa la socotaan waxaan gaarnay waqtigii isla xisaabtanka iyo dabagalka sidaas daraadeedna mar dambe looma dul qaadan doono bixin dhul dawladeed. sidoo kale waxaan dabageli doonaa dhammaan dhulalkii horey loo bixiyey ama wasaaradaha ha bixiyaan ama dawladda hooseba laguna xisaabtami doono mas-uuliyiintii ku tagrifashay dhulalkaas iyaga ah sharcigana lala tiigsan doono mas-uuliyaddoodu heerkay rabaan ha joogaan. Soomaaliya maanta waxaan joognaa waqtigii isla xisaabtanka bacdama aan doonayno in caasimadda loo soo celiyo bilicdeedii iyo sidii barasamaadka ahaan jirtay waxaa waajib naga wada saareen ilaalinta iyo badbaadinta hantida qaran oo taaka ka mid ah lagama tanaasuli doono. waa mahadsantiin.